kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee la xidhiidha magacaabista golaha wasiirada oo banaanka u soo baxay markii ugu horeysay iyo ra'iisul wasaare hortagaya golaha shacabka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u kacay magaalada Qaahira kana raacay magaalada Muqdisho diyaarad qaas ah oo ay soo dirtay dowladda Masar dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku biirtay dagaalka u dhaxeeya ciidamada liyu booliska Itoobiya iyo ururka Al-Shabaab iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaadhay xuduudda labada wadan qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkan furo si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino inuu ku bilownay daawadayaal waxaa markii ugu horeysay banaanka u soo baxay kala aragti duwanaan u dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre taasi oo la xidhiidha magacaabidda golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya lana qarinayay toddobaadyadii ugu dambeeyay khilaafka u dhaxeeya labada mas'uul ee ugu sarreysa wadanka lana xidhiidha magacaabista golaha wasiirada iyo qancinta beelaha uu ka dhaxeeyo awood qaybsiga Soomaaliyeed ayaana dib u dhigay waqtigii la doonayay in lagu dhawaaqo liiska golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre arrintani waxaa la sheegay inay sabab u tahay culays xooggan oo ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay ka wajahayaan saamileyda siyaasadeed ee dalka iyo ra'iisul wasaaraha oo dalbanaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu madax banneeyo soo xulidda golaha wasiirada arrintaasi oo uu diidan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrinkani ayaa hadda banaanka u soo baxay kadib markii ay fariin loo diray xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya laguna wargeliyay in si degdeg ah u soo xaadiraan kulanka qabsoomaya xuruntooda magaalada Muqdisho isla markaana uu hortagayo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre isagoo aan wadi liiska golaha wasiirada ee dalka guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada u diray fariin qoraaleed oo uu sheegayo in maalinta berri ah uu jiro kulan uu ajandihiisu yahay codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha wadanka Xamse Cabdi Barre qoraalka ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ayaa lagu sheegay in kulanka berri oo Isniin ah uu ka qabsoomi doono xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa saacadu markay tahay 9 subaxnimo sidee warbaahintu heshay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa codsanaya 10 maalmood oo dheeri ah la siiyo oo uu ku soo dhiso golihiisa wasiirada maadaama maalinta berri ah ay ku eg tahay 30 maalmood ee ahaa muddada uu haystay inuu golo wasiiro ku soo dhiso kastuuna jirin qodob dastuuri oo arrintaasi caddeynaya 30 cisho ah haddana waxay ahayd arrin soo jireen ah oo ay ku dhaqmayeen dowladihii kala dambeeyay ee dalka wixii ka dambeeyay markii la qaatay xornimada kulanka golaha shacabka ee berri ayaa sidoo kale imanaya xilli ay kulan wadajir ah yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaasi oo diiradda lagu saarayay dhismaha xukuumadda cusub ee dalka wararka laga helay kulankaasi ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay si wadajir ah uga dalbadeen guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inay u yeedhaan isla markaana baarlamaanka ay muddo 10 beri oo dheeraad ah siiyaan si uu soo dhiso xukuumaddiisa guddoomiyaha golaha shacabka ayaa la tilmaamay in isaga aysan quseyn ismariwaaga u dhaxeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre ee la xidhiidha in ra'iisul wasaaraha loo madax banneeyo soo xulidda golaha wasiirada arrintaasi oo ka soo horjeedo Xasan Sheekh Maxamuud ila wareedyo ku dhow kulankaasi ayaa waxay sheegeen in madaxdu isla meel dhigeen in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka codsado baarlamaanka 10 maalmood oo dheeraad ah si uu uga fikiro magacaabista golaha wasiirada dadani uu codsanayo waxa uu ra'iisul wasaaruhu sii wadaya la tashiyada ku aadan dhismaha xukuumad tayo leh waxaana madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku la qaateen Xamse Cabdi Barre qorshihiisa codsiga muddada dheeraadka ah inkastoo aysan dastuuri ahayn in 30 cisho lagu soo dhiso xukuumadda haddana waa qorshe siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku dhaqmaan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa tan iyo markii baarlamaanku ay meel mariyeen magacaabistiisa waxa uu wajahayay culaysyo fara badan oo kaga imanayay saamileyda siyaasadeed iyo beelaha degan wadanka kuwaasi oo la xidhiidha soo dhisidda golaha wasiirada ee dalka iyada oo wararka qaarna ay sheegayaan in culayska ugu badan uu kaga imanayo beesha uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaruhu ee daaro qaabka ay u qaybsanayaan wasiirada ay ku dhan yihiin nidaamka awood qaybsiga arrintaasi qudheeda la xidhiidha wasiirada beesha daaro ayaa ah kuwo ay ku kala aragti duwan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre
culeysyada ka imanaya beelaha iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed badanaa hadda ma wajahayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu waqtigiisa ugu badan ku qaatay tan iyo markii la doortay safarro dalka dibaddiisa isagoo hadda u ambabaxay magaalada Qaahire ee caasimadda waddanka Masar. Safarkaasi oo noqonaya kiisii toddobaad uu kaga ambabaxo waddanka tan iyo xilligaasi waxaa ku sugnaa magaalada Muqdisho si joogto ahna u qaabilayay siyaasiyiinta iyo beelaha Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la sheegay in wareer xooggan uu ka qaaday arrintaasi. Xitaa hal beel ayaa la sheegay inay ra'iisul wasaaraha u tagayeen iyagoo kala socda islamarkaana u gudbinay dalabkooda la xidhiidha dhismaha xukuumadda cusub ama siyaasiyiin isku beel ah oo aan isku aragti ahayn. Taasi waxay qasab ka dhigtay in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uusan ilaa iyo hadda awood u yeelanin soo xulidda golaha wasiirada ee dalka iyo inuu qabsado 10 beri oo dheeraad ah si uu u sii wado la tashiyadiisa kadibna loo qaato go'aan kama dambaysa oo lagu soo dhisayo golaha wasiirada ee dalka. Dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u ambabaxay magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar isagoo oo ka raacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho diyaarad qaas ah oo ay u soo dirtay dowladda Masar. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qaar ka mid ah dalalka xiriirka soo jireenka la wadaaga Soomaaliya ku maraya socdaal ku salaysan dib u xoojinta iskaashiga diblomaasiyadeed iyo xaqiijinta Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ayaa u ambabaxay Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigiisa dalka Masar Cabdifataax al-Siisi la yeelan doona wadahadallo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha gaar ahaan iskaashiga dhaqaalaha, diblomaasiyadda, la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta doorka dowladda Masar ee horumarinta waxbarashada Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa horay safar ugu tegay dalalka Imaaraadka Carabta, Turkiga, Ereteriya iyo Kenya, Jabuuti iyo Tanzania. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ku howlan wanaajinta xidhiidhka Soomaaliya la leedahay dalalka gobolka iyo kuwa ay horay ula lahaan jirtay xidhiidhka soo jireenka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalalka siduu horay u booqday tan iyo markii loo doortay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya 15kii bishii May ee sanadkan wuxuu ku tegay diyaarada uu isagu ka qaatay dalka kuwaasi oo geeyay magaalooyinka uu doonayay. Hase yeeshee dowladda Masar ayaa diyaarad qaas ah u soo dirtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo geynaysa magaalada Qaahire caasimadda Masar. Arrintaasi oo muujinaysa in Masar dana waaweyn ka leedahay Soomaaliya marka loo eego heerka ay gaadhsiisan tahay soo dhoweynta iyo xiisaha ay u qabto la kulanka madaxweynaha Soomaaliya. Arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo muddooyinkii dambe si weyn loo hadalhayay in dowladda Qaahire ay danaynayso saldhigga militari ee ka samaysato gudaha waddanka Soomaaliya si ay arrinkaasi u fushato dowladda Itoobiya oo ay kala dhexayso xiisad xooggan oo ka dhala dhinaca webiga Niilka oo isku haystaan labada waddan. Masar waxay si weyn u baadigoobaysaa in gudaha Soomaaliya ay ka hesho saldhig militari iyadoo arrintaasi hadda kala hadlaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida ay tibaaxayaan xogo kala duwan oo ay heshay warbaahintu. Waxaana arrinkaasi horay uga diiday Masar dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee xafiiska banaysay 15kii bishii May. Masar oo sanadihii ugu dambeysay ay sii xoogaysanaysa xiisadda kala dhexaysa dowladda Itoobiya oo isku dayaysa inay buuxiso biyo-xidheenka webiga Niilka oo 90% biyahaasi. Shacabka dalka Masar ayaa doonaysa inay saldhig ay ku cabsi geliso dowladda Itoobiya ka samaysato gudaha waddanka Soomaaliya. Masar waxay ka mid tahay dowladaha ugu awooda badan qaaradda Afrika dhinaca dhaqaalaha iyo militariga, waxaana ay ku soo jeedinaysaa Soomaaliya inay ka caawin doonto arrimo ay ka mid yihiin waxbarashada, dhaqaalaha iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. Dhanka kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qayb ka noqonaysa dagaalada ka socda xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya islamarkaana u dhexeeya ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee New Booliska iyo ururka Al-Shabaab oo maalmo ka hor weerar ku qaaday deegaano dhaca xuduudda labada waddan. Dhinaca Itoobiya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawaye Yuusuf Raage iyo taliya ku-xigeenka ciidamada New Booliska ee deegaanka Soomaalida Sakariya Cabdi ayaa ku kulmay deegaanka Ceel Barde ee xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya halkaasi oo ay ku yeesheen wadahadallo la xidhiidha sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ay ciidamada New Boolisku kula jiraan ururka Al-Shabaab kaasi oo maalmahani ka socday
xuduudda labada wadan ee u dhaadhacsan dhanka Itoobiya. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay, ciidanka liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida oo wadanka Itoobiya ayaa dagaalo qadhaadh kula jiray dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka gudbay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, weerarna ku qaaday gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. Shabaabka gudaha u galay Itoobiya oo watay gaadiid dagaal oo ku dhow 20 ayaa markii hore u suura gashay inay qabsadaan saldhigyo ay lahaayeen ciidanka liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxayna halkaasi gaadmo ah ku dileen askar ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. Hase yeeshee, ciidamada deegaanka Soomaalida ayaa hareereeyay Al-Shabaabkii halkaasi dhibaatada ka geystay, waxayna sheegeen inay gaarsiiyeen khasaare ba'an, kuwaasi oo garab istaag ka helaya shacabka dowlad deegaanka Soomaalida dalkaasi. Guddiga amniga dowlad deegaanka oo war ka soo saaray arrintani waxa uu sheegay inay soo afjareen intooda badan dagaalyahanadii galay xuduudda deegaankooda, islamarkaana weerarka ku qaaday deegaanada dhaca gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa booqasho ku tagay deegaanada xuduudka, waxauna halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, khaasatan taliya ku-xigeenka liyu booliska, kuwaasi oo ka wada hadlay sidii loo dhabar jabin lahaa kooxaha argagixisada ee ka gudbay xuduudda dowlad deegaanka. Ururka Al-Shabaab oo ku sugan meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa horey looga baran in weeraro noocani oo kale ah ka geystaan gudaha dalka Itoobiya. Hase yeeshee, waxaa dhici jirtay inay weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ka fuliyaan wadanka kale ee la deriska sida Kenya. Wararka qaar waxay sheegeen in kooxda TPLF ee ka talisa gobolka Tigreega ee galbeedka wadanka Itoobiya inay ku lug lahayd dagaalkii lagu qaaday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyagoo isku dayaya inay ka aarsadaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo dadkiisa oo si weyn u garab istaagay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed intii uu gulufka colaadeed kula jiray kooxda TPLF ee galbeedka dalka Itoobiya. Dagaalada ayaa si goos-goos ah maalmihii lasoo dhaafay uga socday deegaano dhowr oo ku teedsan xuduudda, iyadoo hadda ay noqonayso in dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ay iska kaashanayaan dagaalka lagula jiro kooxdaasi argagixisada ee Al-Shabaab oo horay dhibaatooyin badan oo amni darro ah uga geystay gudaha wadanka Soomaaliya. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay, sidaas iyo nabadgelyo.